ujeedin meydadka halkan waxaa ka dhacay shil laga yaabo meydkaas oo ujeedin 6 qof hadda meesha ku dhimatay oo kamid tahay gabar la Muniish gabar xalay meeshii joogtay meesha aniga ka heesay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay ana heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay xalay waxay ku sugnayd showfaneedkii qaaliladan hase yeeshee maanta waxay ku geeriyootay dalxiis ay ugu baxeen iyada iyo koox kale oo dhalinyaro TikTok ah duleedka magaalada Nairobi haddaba gabadhan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Muniish ayaa waxa ay ahayd jilaayad caan ah iyadoo una sameysay riwaayado badan oo caan baxay waxaan kula wadaagi doonaa qaaliladan oo gabi ahaanba shaaciday inay fanka isaga baxaydo sababta la xiriirta in gabadhii xalay ku sugnay showgeeda ay geeriyootay iyo sida uu dhacay shilkan ay waxyeeladu ka soo gaartay dhalinyaradan TikTokeriska ah iyo inta ay la eg tahay guud ahaan dadka dhintay hase yeeshee inta aanan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu faafo bulshooyinka Soomaaliyeedna u gaaro sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo jalaalkeena subscribe dhahan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa la soo wariyay dhacdo argagax leh taas oo ay ku dhamaadeen dhalinyaro TikTokeris ah kuwaas oo ku sugan magaalada Nairobi haddaba dhalinyaradan ayaa waxa ugu baxeen dalxiis duleedka magaalada Nairobi hase yeeshee shil gaari oo naxdin leh ay halkaas ku galeen waxaana laga soo duubay muuqaalo badan oo argagax leh kuwaas oo lagu sheegay dhimashadooda waa kan qayb kamid ah muuqaalada laga soo duubay ujeedin meydadka halkan waxaa ka dhacay shil laga yaabo meydkaas oo ujeedin gaari dhan oo meeshan ku qarxay migratin ujeedin xagga dadku si u dooban yihiin ilaahowna badbaadi 6 qof hadda meesha ku dhimatay oo kamid tahay gabar la Muniish ujeedin meydadka halkan waxaa ka dhacay shil laga yaabo meydkaas oo ujeedin gaari dhan oo meeshan ku qarxay migratin ujeedin xagga dadku si u dooban yihiin ilaahowna badbaadi 6 qof hadda meesha ku dhimatay oo kamid tahay gabar la Muniish haddaba arrintan naxdinta iyo la yaabka kala xambaarsan ee dhacday ayaa waxa ay tahay in fanaanada qaaliladan ay shaaciday gabi ahaanba inay fanka isaga baxday kadib markii ay shaacisay gabar lagu magacaabi jiray Muniish Baby oo ku dhimatay shilkaasi in ay ku sugnayd xalay showgii ay qabatay waxayna naxdintii ka soo gaartay arrintaasi sababtay inay guud ahaanba isaga baxdo fanka waatan qaaliladan oo arrimahaasi ka sheekaynaysa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada ka soo kacay waxay adiga saacada ka hor adiga ay ahayd markaan soo kacay wiil baa soo wacay wiil markuu soo wuxuu yiri iblaayo mataqaanaha gabar xalay meeshii joogtay meesha aniga ka heesay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay ana heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxay ila noqotay de waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yiri warma gabadha markay meesha xalay ka soo baxday dhimatay maya hadda dhimatay xagee ku nimatay gabadhu waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan ilaa hadda aniga beenku diima sheegayay gabadha waxa la jirkeedii waa go'ay ma la arkayo ilaa hadda aanu aaminsanin qalbigeyga aad buu cabsanaya wuxuu cabsanaya waxa waawacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada ii soo dir wiil kale oo meesheeda ay ma jiro dadka keeni jiro taksiila ilaa hadda wiilkaas magaciisa bas waa la ii sheegay laakiin ani muuqiisay inaan garanayo waa garanaysaa la igu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo ana waxa jira aan muuqaal ka garanayo oo magacooda aan garanaynin laakiin gabar aan caadi u garanay ay ahayd waxa la horta ilaahay oo naxariisto adinkana u soo duceeya waxay aadaalirine faasha usi socdeen la dhahay markii usi socdeen waxa la gaariga iyaga saarayeen walaasheed iyo wiilal kale iyo dad kale la saaray way ka degteen bal fiir malakumudka ilaahay bal fiir qof markuu dilaayo si day doonta waa u dilay 2 qofood bas baa war ku soo hareen ku kale gaari kale raaceen gaari kale markay raaceen isla daqiiqadiya la yiri gaari kale ta ku yimaad wiilkiina uu go'ay gabadhiina waa la arki laayaa la yiri ani ilaa hadda ma ogi sidoo kale fanaanada qaaliladan oo hadalkeeda sii wadatay ayaa waxa ay tilmaamtay inaan heesaheeda la adeegsan karin waxayna sidoo kale sheegtay sababtii ay fanka ugu jirtay oo ay mar walba ay ka bax istiraahada joojinaysay waa kan iyadoo arrimahaasi sharaxaysa ani iimaade fiidiyoada xal ugu dambeeya soo galiyay isla fiidiyooga markaan soo galina waa ka saaray heesayga private galiyay waxa waa wada tirtiray wixii aan aniga hees qaaday ay ku jiray YouTube-kayga waan iska tirtiray
walba wax badan kuma jirin youtube-ka raaga ku soo haray youtube-ka raagan iga tirtir ayaan dhahay waa kaa tirtiraa ugu yiri waxaan kaloo rabaa aniga waan naxay waxaan ku naxay awalba fanka waa ma rabin habeen kasta waan cabsadaa habeen kasta waxaan ka baqaa nihu waxaan fahmi waay habeenkii maalinta dadku isku feeling maahan aniga habeenkii maalintii sida caadi ah habeenkii waa ka cabsi badanahay marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesayga ugu jiraan qofkoo doonaha ahaado qofkii fiidiyowgeygaan arka bataatan inuu fiidiyowgeyga heesteyda uusan youtube-kiisa ku jirin meel kasta oo ku hadduu isticmaalo iyo haddii kaleba baliis waxaa idin ka codsanaya walaashin idinka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesayga oo dhan maadaama aniga aan fankii go-aankeyga ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray codsi ayaan wataa qofkii inta fiidiyowgeygaan arko oo youtube-kiisa heesteyda ee kasii isticmaalo ama sii gashto aakhiriyo adduun ma cafiniyo ilaahay baa loo toobadkeelaa ilaahay waa u toobadkeelay hees dambana leeguma oga maalin walbaba waxaan isdhahaya israaqadan ilaah baa baxsho fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay mar kastana aan ka baryi jiray aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii maanta in aan bataatan aan fankeyga soo gabangabeeyey dambana aanan rabin inaan kusoo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay ilaahay tiidaa i rumeeyo aniga shaydaan waa dagaalanay haddaba waxaa leeyahay dhalinyarada dhimatay allaha u naxariisto waxaana soo jeedinayaa tale ahaan inaysan dhalinyaradu sidan oo kale isku raacin maadaama ay waxyeella ka soo gaari karto waxaan leeyahay intii dhimatay allaha u naxariisto runtii waxa uu ahaa fal argagaxle oo aan horay u dhicin mid isaga lamid ah waxaan rajay doonaa in ilaahay jannadii uu ka waraabi doono dhalinyarada dhimatay ee nolosha mustaqbalka ka laha wixii kasoo kordha arrimahan halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa haddaba ha ilaabin inaad janaalka subscribe dhahato muuqaalka aad leegarayso mahadsanid أصحابتي الغالية أكثر وين ولا يقال أولي بقى نجعل إنا مرة في على سلكن يا كلام ولا مليش هاتي أبرام صمر أتوالي أنا عاوى مليش هاتي ما والله بلا حوار مركز واحد جلها صغيرة وقلها صغيرة أنا أخت في وصلك هنا إن شاء الله